dadka oo midoobo kulligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga aydun murantaan waranku waa macaan yahay dadka oo midoobo kulligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga aydun murantaan waranku waa macaan yahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaashayda dhageystayaashayda oo magacu bixiyay magacana maanta aan soo gudbinayaa hadda kadib magacaasaan isugu wada yeedhi doonaa oo waxaynu meesha ka saari doonaa abwaandhiirano waa mid kamid ah taageerayaashaada waxaynu kaga maarmi doonaa waa mid kamid ah kooxda guubaabo dhammaan daawadayaashayda dhageystayaashayda waxaan u bixiyay guubaabo had iyo jeer waxay igu guubaabiyaan inaan noqdo kii maxaan idhaha ilaahay xil weyn bay saareen ha ii dhib yareeyo had iyo jeer daawadayaashayda dhegaystayaashayda dee farahani ma sinna waa laynaga helayaa qof qufac ku jiro oo qufacaya waa laynaga heli laakiin inta fiican baa badan una joojin mayno waxaanan u bixiyey guubaabo kooxdayda ama guubaabo group ilaahay idamkii marka aad soo wacdo waxaad oran doontaa abwaandhiiranow waa guubaaba group nin kamid ah yaa kula hadlaya xabadda bajaqayda ee inagu dhex jirtana isaga sabura maanta taariikhdu waxay dul hoganaysaa 15kii bishii November 2019 halka saacaduna waxay soo xangagaabataba barroosinka ay dhigatay 5tii galabnimo kullay bisha November aniga xusuus gaar ah leedahay oo 4tii bisha November waxay ahayd markii la igu meheriyay qaansar roobaad oo maanta fariin idin ka wada daawadayaashayda dhageystayaashayda fariin bay maanta idin soo fartay qaansar roobaad waxaan u malayn doonaa ilaahay idamkii dhawaan inaad arki doontaan iyadoo igarab fadhida barnaamijkana ila soo jeedinaysa ilaahay idamkii laakiin dumaashidiin way idinka cabatayoo fariin la soo diray ayay ka gabs qabsato Soomaalidu dee dhaqan maynu lahaan jiray xagga la iskama mari jirin kooxda guubaabo durbo waxay ku qaadqaadeen qaansar roobaad oo maxay yiraahdeen waan idin sheegi doonaa qaansar roobaad waxay tiri marka abwaaniga qabsa kooxdaada waxaan qaansar roobaaday khadroy ma taqaanid kooxdayda way nagu qaadqaadayaan durba ninbaa wuxuu soo qoray asxaabteena kamid ah abwaandhiiranow ayaantii barnaamijkii indha cadays aynu galay wax yar ii raalli hada cadaada waan ku maqlaa hadda barnaamijka live baan ayaad ugu jirtaan hadda barnaamijka live baad ugu jirtaa waxaan idinka rabaa anaa idiin soo geli lahaa laakiin haddaad idinku ii soo gasheen waa caana kugu daatay dhib ma laha niyow xalay waad soo wacdeen reer cadaada haddaad tihiin waxaad ii sheegteen barnaamij horumara inaad samayseen oo xagga teknolojiyadda ama makaaniga ama xagga farsamada gacanta marka barnaamijka waad noo faahfaahin doontaan aniga iyo dhammaan kooxda guubaaba group ama kooxda daawadayaashayda dhageystayaashayda waad idin maqli doonaan ilaahay idamkii marka haddaan anigu idinku soo noqdo ka waran yarkii kala hadda iga maqan labadina ahayn yar kala iga maqan yarkan kala markuu isugu yimaado aan tashano annagoo safrigan soo wacayna markaasaan ku sheegaynaa baahiyadeena waayahay haddaan intaa barnaamijka ka baxa nasiibkiin inta aan barnaamijka ku jira haddaad soo wacdaanna waaba saan rabay markasta waan ku soo wacna annaga
waxaana afhayeenka dadka waxaa tahay ninka la yidhaahdo abwaan kenya tahay inaad dadka u sheegtid waxa aan qabanay iyo sida looga gaabiyey baadii shaqada qabana insha allah waa yahay barnaamijyadeena berri bay geli doonaan kan live-ka haddaad ka soo gaari weydaan over caawa ku sooxayna oo kuu sheegaynaa arrinteenna waxa aan qabanay waxa aan ku fakarayna inaan xirka marno mafaan ilaahay idamkii caawaan iswaraysan doonaa over waaye maalinkii aynu ku jirnay barnaamijkii indhacdayska yaa nin kooxda gubaaba gruub ka tirsan baa wuxuu soo qoray waan yar xabeebsanaa waa waray abwaandhiiranow qaansan roobaad waabaad ku xabeebatay maxay ahayd waayahay waa la kaftamaa dumaashadii waad la kaftami kartaan wayna iman doontaa barnaamijka waxaan jeclahay hadday iga ogolaato wadahadalkii baa noo socda inay barnaamijka ila soo jeediso ila iyadaa saxafi daf soo tidhi marka hadda maxay ani kooxdaada ay leeyihiin bay tiri aad ku xareeyay waayahay waa kaftan qaran anna waxaan idhi qaansan roobaaday kooxdayda gubaaba group way nagu qaadqaadayaan iska sabo inkastoo in dhaqankii islaamka iyo dhaqankii Soomaalida ay wataan oo dad aad u akhlaaq badan yihiin runtiina ninka soo qoray fariintaas waa fariin يعني هذا كده واحد سوق هذا أنت وناوي حليا funniest message in the program برنامج كفرين تقول عجيب سن وقصل كبدن ونسوق هذا دونا نيك صادرنا وإنه أما قبل صادر تنا وإنه حس دورنا برنامج كانوا ما أنت هو بدنا دونا أرميها بالشدة سياسة بالنسبة غير نصرينا مركا نيك سوق رأي ووري أبو أنير أنا كان سرابا ضوابط بتكون حبيبتي ما هي وحن لا هي وfunniest message وأنا كفر حني ولا شيء لا أدب وقص شيء إن شاء الله وياي ما أنت رايحين لو يجي دورنا فرين توقع عجيب سن نيك الصقرة لكن لبها الحدالة ما أنت يدين هيا لبها الحدالة بوادي دقي سنة مركز دقي ستان شواب يرد دقن صقرة دقي سهدا أريما قصة كشيكين دقي سو شواب تصوتو ولي بدي أصحاب تيجي واحد يقول إيه إلا وأنا وجهي أبغى أن هالحدالة وبدنا ويديسه dadka ka soo jawaabana ma soo xustid marka maxaa anagu halkaan niyo jabaano yaan ka qaadnay baa ka qaadi meesaan ilaahay idamkii 10 qof ee u horeeya ee jawaabta asiiba bari waan soo bandhigaya ilaahay idamkii maskax bina aadan waa daciif hadaan alla ilowsiinin saasan yeeli doona markaan idhaa anigoo daciif ah oo quraanjo ka liita ha awoodda ilaahay markaan eego waliba quraanjo ما الستركتيف كوي هذين ما أنت دقاقة بورك كعنيسة ونكسي ليته مركب وحسن سمين دونا ما أورن كربدي أدون ضعيف أنا هاي هدي ربي أود اللي أوجيسيو يعني لو سنين إذا ممكن إلهي طبعا كأورية مسج كأما فرينت صادرة جوابته ونحس دونا هذا معناه هذا الكي إذا كنا بديه إذا كان بيجي هالحدالة هورد جيسو أنت أنا هالحدالة جوجلين مثل وان كعذر دارنا إياه marka aan barnaamijyada idin soo gudbinayna daawadayaal dhageystayaal saan magaalada isaga ordayna hadaan u dhaka weyna media u nahay eed waa Afrika boardka aan u dhexordayno yaanu horay automatically barnaamijka ka galaa laakiin intaan noqol gallo oo aanu qaboojiye daarano oo aanu bahalkii border isticmaalno oo aanu isqurqurxino hadda waxa laga yaabaa shaarkayga intiisa korina dhidid ka dareemaysaan dhididkuna waa dhaqan rageed marka marar badan baan anigu barnaamijka dib u yar qoraansado yaa waxaan arkaa aniga oo dhidid meedhana aniga oo board meedhana marka documentary weeye raali taana ka ahaada hal xidaalahaygi hadalkii aan idin kuna badiyay idin kana biyay alla ilaahay mar labaad aan dib u qoraansado Hargeysa wuxuu u soo maraa dhulka Muqdishona wuxuu u soo maraa cirka Kismaayana wuxuu u soo maraa badda waa maxay waxaan ka hadlayo الحدالة كوباد الحدالة اللباد وريا محمودو سورير ميجي آدي ميس وحيرها أديرو غيره انتي تيران وحي نو تيران 5 كيلومتر أيو يجي أديرو إن شاء الله هو النبات تجي دون تاي مركز نبات تكتو أديركي محمود هاران واحد كنت راهدا أمين سحنا هارام وحوك يجي بريبان كوي من دونا سيدا عذيرو كله وأي هيبوي ودقاقي وحو يرين مركو وحي رجاسي سعودي عذيرك محمود هاران ميجا هاتشوجا تلفون ميو وطا وحن لو وطا
nambarkiisana telefoonkaagaan kuugu soo diri hayahe maca salaama buyo wuu iga dhaqaaqay markii uu cabbaar iga sii maqnaa 5 daqiiqo ayaa nambarkii adeerkay maxamuud haaraan yaan ugu diray telefoonkiisii agtayduba ka dhawaaqay haddaba ninkaa iga tegey ee aan fariinta faray sidee ugu habboon uguna dhib yar een anigu ku ogeysiin karaa inuu telefoonkii ilaaway ka soo jawaaba aan mar kale idinku celiyo wariyaa axmedow reer miyiga miyaa laadi doontaa haa oo intay inoo jiraan 5 kilomitir adeerow insha Allah waad naba tagi hadda reerii tagto adeerkay maxamuud haaraan waxaad ku tiraahdaa amiin saxana haaraan wuxuu ku yiri bari baan iman doonaa markaasuu yiri isaga adeerkaan number miyuu wataa haa hoo telefoonkaagan kuugu soo diri doona wuu iga tago markuu 5 daqiiqo iga sii maqnaa yaan nambarkii adeerkay maxamuud haaraan yaan ugu diray telefoonkiisii agtaydu ka shanqalay ninkaa iga tegey 5 daqiiqana iga sii maqnaa sideen ku ogeysiin karaa uguna dhib yar uguna habboon inuu telefoonkiisii agtayda kaga tegey over waan ka baxay magaca kooxdayda taageerayaashayda daawadayaashayda dhageystayaashayda na dhowra dhageystayaashayda magac baan u bixiyay ilmaad rayaalow hadaba i dhageysta kooxdayda aniga waxa la yaa daawata ee ila socota dalka gudihiisa iyo dibadiisa meel walba ha joogeen ilaahay waxaan ka baryayaa abwaan qaran baan ahay ilaahay ha xafido ilaahay ka fariinta xun ii soo dira iyo ka fariinta fiican ba ii soo dira ilaahayow farahaasi ma sinne ilaahayow xafid ilaahu laba talaatiiroon ku hagaaji waxa kooxdayda la yiraahdaa guubaabo iiga leexda kooxdayda guubaabo group noolaada ummadda Soomaaliyeedna muwaafaqada Allah waafajiyo halka marka aan marayo waajibkii wadaninimo oo awal hore xagga hore marin jiray ilmaad rayaal balcaaw iga maanta iga dhageysta dhaxdaan galiyay maanta malaayiin qoys noqday weeye Soomaali waa mid qureeta iyo midho geed kaligii moorada ka dhaxayso wadadan kala maarmin ee adduun waa ismaciinsiya isku mowqif ahaada nabi maxamed wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam culimadii baa joogtay intaas afdheeri haygu ahaato hal ay dulqaatay illa culimadii oo joogta nabigii baa yiri hadaan idhaahdo hadda waxaan u malaynayaa deewaan yar ixtiraam la'aan bay noqonaysaa iga raali ahaada wuxuu yiri an nadaafatu nisful iimaan nadaafadu iimaankii kamid tahay Soomaaliya nadaafada hal lagu dadaalo oo waxaad ogaataan qashinku kolba intuu idin jiray in cudurku idin jiro baleega hadda qashin waa god ku aas ama gaariga saar qashin haddii ku ag yaalo caruurta cudur baa kaaga dhiciya reerkee qashinka 3 maadaama isku sameeya god u qodo oo ku rida guba gaariga saar qashin waa gub hal ku dhageenu Soomaali weynay waa qashin waa god ku aas ama gaariga saar eegana reer Hargeysa guubaaba group way ku badan yihiin kooxda guubaaba group waad garanaysaan wixii ka dambeeyay maanta wixii ka dambeeyay guubaaba group oo ah daawadayaashayda na dhowra dhageystayaashaydu laan dheeray ku yihiin Somaliland waxaana leeyahay Allah idin xafido hadda ila hadlayeen waxa la barnaamijka maanta naga qayb gali ninka maanta uga qayb galaya Hargeysa waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Canshuur Muhammad jigjiga yaray ku nool yahay haddaan u galayaa bal waxaan leeyahay reer Hargeysa ma hadaysaan annagu reer Kismaayo haddaan nahay roobku ilaa xalay waa nagu daayay ilaa maanta Hargeysa markaan la hadlayna waxa ay sheegeen inaynu roob haynin wariyaa liya oo muslima ilaahay Hargeysa roob si waa yahay السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة عبد الرحمن عنشور محمدو برنامج كأنه توس بعد قلت جرتها ما قرأتي برنامج كأنه وحل إلى هذا إلهي إذا مكي جيت كام حاجة ما قرأتي
marka reer Hargeysa reer Somaliland daawadayaashayda dhageystayaashayda magac baan u bixiyay guubaaba group baa la yiraahdaa guubaaba group ama guubaaba society waa laandheer kooxdaydu Hargeysana laandheer ay ku yihiin Allah idin xafidee bal ka waran magaaladii Hargeysa ahayd Cabdiraxmaan Canshuur Maxamedow jigjiga yaray inaad ku nooshahay baan warka hayaa miyaad ka tagtay mise wali jigjiga yaray baa joogtaa waayahay roob seeyahay roob ma ka daay dhulka gudoomiyaha degmada Hargeysa biyo macaan baa magaalada laga qabtiri wakiilaha meel fog baana biyaha laga soo talaalayay biyihii magaaladii ma ka wadaxday oo biyihii ma soo gaadheen macaana mise magaaladu wali waa yara kawrax waan gartay Cabdiraxmaan Canshuur Maxamedow barnaamijka toos baad ugu jirtaa geedkaama xageeyo ilaahay idamkii Cabdiraxmaan war miyaad ka haysaa waxyaabaha quutal duruuriga ah ee magaalada Hargeysa waa sidee bariyo dhaweyd xogaa sixir barar iyo waxba la sheegayay xaaladdu eega ma iska degan tahay waayahay litirka caanaha geela magaalada Hargeysa inuu ka yahay Maxamedow aan idhaahdee ha Cabdiraxmaan Canshuur Maxamedow miyaad wax wara ka haysaa litirka caanaha geela intuu ka yahay magaalada Tolow koobka dhaglihii waa imisa koobka dhaglihii aan ka biiye aan ka dhaxgalay waa imisa الله إلهي ونورمال إلهي عدكي عانها بها نوبديو إن وياهي Soomaali waa isku doon bay saaran tahay waan idin soo ducaynaynaa reer koonfureed hadaanu nahay reer Somaliland ilaahay idamki barnaamijkeena maanta aad nagala qayb gashana waan idin ka mahad celinaynaa waayahay walaal barnaamijka dhawaana hawada dhakaweyna media ayaad kala socon doontaan idamka ilaahay barnaamij kale oo kala intaad nagala qayb gali doontaan dhammaantiin waa reer Somaliland ama khaasatan reer Hargeysa ama haddaan sii weynaa waa jigjiga yaray oo dhanna waan salaamaya waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye waayahay barnaamijkeennii horay aynu ugu soconno waayahay barnaamijkeenno iska gabagaba ah aniga aabbahay الله ونحرسته صحني هاران علي سعيد يا وحي يقول أبو هبل مركو لمن يجيبوا دردار ما مغشي هابان أبو ما أنت أنا عارف ما الخبا وإنه جيد هو صلاة فردينه وكل دردار ما ها أبو ولقى روح كأمنها خيامين meel ku qorta aabbahay wuxuu yiri aabba waxaan kugula dardaarmayaa weligaa ruux ku aaminay ha khayaamin anigu guubaaba group baan la hadlayaa waa kooxdayda na dhowra dhageystayaashayda ruux waloo i dhageysanayo ruux ku aaminay weligaa ha khayaamin inta meel ku qoro intaasaan kaga baxay hadalka baruurtiisa fahan ruuxa waxgaradka hadalka waa loo saraa doqontana waa loo saafsaafaa haddaad i dhageysanayso oo dhawrayso weligaa ruux ku aaminay ha khiyaamin waan ka baxay
barnaamijkeennii geed kaama xageeyo oo farsamada ii jooga waa maxamed ibraahim karaama oo ku mashquulsan kaamirada isweydaartooyinka xadhkaha xididada cinjirka ee saxambaaratada qaybiyaha bogsiyaha iyo beekhaamiyaha isla markaana aad u duraaminayay doolilamooda iyo faradaaliyaha si awaamiir kala duwan u siiyo kaydiyaha isnuujeeyaasha caburyaha iyo codnaaxiyaasha maanta ay taariikhdu tahay 15 waa bishii November 2019 maalintu ay jimco tahay saacaduna ay tahay ilaahay idamkii 5 iyo 20 daqiiqo maanta intaasaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkan oo kala ah inta aynu ku kulmi doonaan na dhowr dhageystayaal waa kooxda Guubaabo group maanta magacaasaan u bixi Guubaabo dhammaan macaamiishayda sharafta iyo karaamada iyo burhaanta leh waxaan u bixiyay Guubaabo haddaba dhammaan kooxda Guubaabo group waxaan leeyahay inta aynu mar kale kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq